وكا خلاص حبيت أصلا منك السوق قبضت هذا غيسا halkan buu sheekhu ku haysan yahay qof kasta oo jecel inuu sheekh meedhi yimaado waxaan kula talinayaa inuu soo siyaarto sheekha magaalada meedh waa magaalo qadiimiya waxa la deganaa 1930 iyo wixii ka horeeyay xalwadahan imsi kala baxan misano wuxuu kala baxaan tiraba 4 nooc sax hadda xalmidi waa tan oo iyadu waa nooc gaar ah waa nooc kala jiidmaya waa kan fitamaha kismaayadii wax kala maaha dabadeed dagaalkii wuxuu yiri ninkii cadaanka wuxuu yiri hoos noo soo kaxay halkan laga dhigay السلام عليكم أصحاب تقاليقة ساكا عاد بني السلام يسوح وناكسن waxaan joogaa magaalada meed waa magaalo qadiimiya waxa la deganaa 1930 iyo wixii ka horeeyay magaaladan waxa lagu tilmaamay magaalooyinka xadaaradu biyo dhigtay ama magaalooyinka ugu xadaarisanaa magaalooyinka Soomaalida marka saaka joogaygu halkan buu joogaa shalay waan nimi muuqaal qurux badan oo magaaladan ku saabsan iyo meelaha qadiimiga iyo taariikhaheedu dhan ayaan diyaarin doonaa July ka dhigo halkan iga dambeysay waa dekadii magaalada meed muddo waan bixi doonaa waxaan u bixi doonaa ilaa iyo Sheekh Saaq oo soo siyaari doonaa marka muuqaalkeenu waa muuqaal soconaya magaalada dhan baan mari doonaa insha Allah intaan ka gaadhno markaana la socdo ruanti markii jooga badaad qaadanayso uu ka duwaya joogiyada kale sababtoo ah marka mawjada iyo sanqadha aad maqasho joogi degan بدنا نقول حجرنا إن شاء الله سفر كي هو سعونيا إلى الشيخ بن إن شاء الله رجلنا نتقنه تقدم هنا كنمي وحن فلينا المقلة إنسان بدنا وتجولي مقال كان نقدر مقال كان هو مقال وقوة بدن أبد مقال كان سوار لايك سعر مقال كان سبسكرايب له أصحابتا سنة هرم مقالة لسعتين وسيسي عنا أنا ودونت مكحينا قانو موت لكن جنين باولا أنا وان سكبا عشالي شوي قانيا شيخ إسحاق بن كسر عنا يمكا إن يربون نوتشراه هو شوي ودقين meelahan oo kala markii aan marayo
فنان iska noqdaa xiliyadan oo kale goodhi marka dumba marayso wada dumba marayso hayaay dhigoonay fanaan ma taw yaa qaaday أصحابته قدامين وحنا سوق قاعدين ماشي كويس أنا شيخ إسحاق واتحرك أنا قدام بيسا كنت جودها لما قال لك رأيت لما وقال لك مرضاي وحن مركا ولوين كل شيء أيجار كيس بدي سلوبان كراسة لكن تبدأ كاميرتها وتقول كراسة وسوسياري كرتها مركا وقت كويس كير شيخ أنت هرقي سكوا رمو هل كان وحي من قرن جيل بيتوناد لا قرن يستحي تبناد ساليش شيء وحكيمي مقالة الأردن كتب حسام السعودية أبطنا يمن بودجي يمن ملك دجنا وأبطنا سيلع بو سوق علي سجى لبا أشرافتي سكمل ده ساليش شيء تبتنا هل كان بوتشوجي هل كان ممكن سوق تشوجا أيوه هتنا وحلي يدنا على إثيوبيا وراف إثيوبيا ممكن كسر نقضي برتم بودجي هل كان بو كوجورس ده كترمي وقدام بنتنا هل كان بتيسي وقت مية لقواس مركا قبل يسأل كم قواسن وحنا قواسن سجى يو لح كمدا عروتيسا iyo laba kamida ashraaftii la socday sida dadka deegaanka iyo magaalada meel degan ay sheegeen marka halkan bulsho ku aysan yahay qof kasta oo jecel inuu sheekh meel yimaado waxaan kula talinahay inuu soo siyaarto sheekha sababtoo waa dadkeen ka soo farcaneen ka soo jeednay badanaa marka dhalinyaro timaado halkana way yimaadaan intay ma kar weedaana waa in hawlo kale ama wax kale ku mashquulsan laakiin waxaan jeclaanahay soo eegtaan insha Allah inoo soo duceysan hadda waxaan soo siyaartay sheekhi waan ka yimi kamarad lama ogola laakiin aan bilaa kamarada ayaan tigwaan shiclaan lahayn hadii la aragtaan oo muxuu ahaa sheekha laakiin way dhici weyday oo lama ogola kamarad marka qofkii soo siyaaranayo kamarada iyo moobilada bas iska kaalaya سلاق waxaan ku bartay waa meeshii kaliya ee buuro dhul bad saddexdii wax bay ilaahay waasii marka halka waxaad ku arataan waa buurihii buurahani sanaag way soconayaan ilaa daalo ilaa marka soo gashay ka bilaabmay halkan imkaan taaganaana waa dhulkii wana soconaya in dhul taax ku garanaysa wanaga soconaya badina oo tahay ka dambaysa marka dhulkii iyo badii iyo buurtii saddexdiiba halkan way kulmisay ma sha Allah wallahi
asxaabta qaaliga wali waxaan joognaa magaaladii Meed caawa waxaan joognaa dukaankan wuxuu ka mid yahay dukaamada ugu caansan magaalada Meed fidiya la dhahaa ninkan odaygaaba naga warramay wuxuu iibiyo soo dhaweey jaamac saar waxaan maanta Meed nagu soo booqday Cabdi Shaqale oo runtii nin dhalinyaro oo aad iyo aad xirfad u leh oo YouTuber gobolka Sanaag baan uu ka xeebtan ka kooban tahay waxaana ka mid tahay xeebaha ugu internationalsan gobolka Sanaag laguna xanto xandaarada soo jireenka in ay tahay sax maanta waxaan ku martigelinaa ama marti nagu yihiin dukaanka ugu internationalsan Company Limited ka Fidiya Store waxa la mulkiilaha waxa weeye Maxamed Axmed Gaas Company Limited runtii ah nin dhalinyaro oo aad iyo aad u daayar kasbaday in badan lagu amaano ganacsiga xadaarada soo jireenta xeebta okay waxa halkan isku dhaafaa xadaarad kala duwan waxaana halkan ay xiriir leedahay gacmo badan oo dalalka Carabta ah runtiina in badan ba ay ka soo qayb galaan dadad kala duwan ama sijiyada kala duwan halkan waxay ka mid tahay yani dukaanada ugu internationalsan xadaarada soo jireenta xeebta Meed waxa weeye waxaanu keenaa oo aanu iibinaa waxyaabo kala duwan runtii aan iyagu laga keenin Somaliland oo laga keenin Xamar laakiin Yemen oo Carabtuna waxay ku caan tahay sida runtii ah xalwadaadka iyo waxyaabaha macmacaanka iyadoo ay u dhantahay Carabi ay tahayba ilaa nabiga kaleey salaatu wasalaam asxaabtaasi ay jirtay Carabtaasi maxaan ku weydiiyay ka dhaxgal raalaho xalwadahan imsi kala baxan misano wuxuu kala baxaan tiraba 4 nooc sax hadda mid waa tan oo iyadu waa nooc gaara waa nooc kala jiidmaya waa kan fitamaha kismaayadii wax kale maaha waa tan way ka duwan tahay saas u kala jiidmaysaa oo dadami karta xitaa waa sida xanjado kale waa sida xanjado kale waa taa lakabyadaas isku saaran tahay wala kabyada macaan weey tan laftarkeeda waa hariizad oo iyaduna waa runtii iyada mid bayna soo gaadhay laakiin tan waa ka originalsan tahay iyada laftarkeeda xitaa nala dhadhami kartaa tanina waa hariisadan oo iyadana labadan sudba waa laba hariisadood laakiin kala duwan yihiin tan xalwada caseeyda kisbaayada mid kale ba ku jirta tayadoo nala dhadhami kartaa Allahu musta'aan waa yahay tanna intaas nooc bay isku jirtaa ومشكل ومشكل درتن mid kale wax qabab badan bay isku jirtaa okay marka waxaan oo dhan Yemen bay ka yimaadaan waxaan oo dhan Yemen bay ka yimaadaan dukaankan baa keena sax everyone dukaankan baa laga helaa okay waxyaalaha kale Yemen niga yimaadaan xalwada hayn maxaa kamid ah tufaaxyadii ba hadda oo iyaguna naga go'an ilaa Brito iyagana caanaha xaliibka mar haddii halkaas kaga dhaqay aan iskaga dhaqanahay Carabidan la qabsan xaliib hadda af Carabi baa lagu dhahaa hadda ma garanay caana kala duwan baa nooga yimaada cadarada laftirkooda waa nooga yimaadaan inkasta hadda go'an yihiin mar hadiiba bisha 12 soo galo aad bay u shaqeeyaan halkana waxa looga yimaadaa ilaa gobolada 6 gobol ee Somaliland baa looga yimaadaa dukaankan runtii mulkiilaha leena uu joogaa wuuna ka shaqeeyaa haddeer dukaankan wuxuu marayaa branch 2 kan waa branch 1kii labada branch laakiin mid bay ka furan labada mid baa cirgaaba ka furan aan sinidisi aad ugu tibisaan waxyaabaha internationalka ay ka soo gala Yemen iyo cadan runtii iyaduna meesha waxaan ka maqnayn cadan gacanka cadmeed istaraatiijiga bayaguna meesha ku jira waayahay ugu dambeyn dukaanka Fidiya waa kan dukaankan wax walba aad ka helaysaan waxaan kula talinayn dadka imanaya inay soo boqdaan dukaanka runtii oo xalwadaha iyo wax u baahan oo ma kaybsan runtii wallahi inkasta aan ay feer tumas nugu badan yihiin way noo yimaadaan waxaad kula talinaysaan dukaamada kale noocina kala hayn dukaamada kale iyo ganacsatada dalka Somaliland ba dhammaan waxaan leenahay xeebaha gabigoodaba takaliya maaha waxa laga helaa ganacsi iyo kala socotaan ganacsideed oo aan wadamada qaar laga heli hadda ma garanay halkan dad miimar hadii xeebta ku taal dad heemiya imanaya waxyaabaha soo milan bala yaabayaan way ku xiranayaan marka dad way soo galayaan ganacsatadana waxa leeyahay sida mulkiilaha Maxamed Axmed Gaas tan oo kale ka furta ka shaqeeya ka hawlgala
kalluun habeenkii maalintii la dabtay arkay laakiin caawa habeenniman dabanana marka nin saaxiibkayo caabir loo ayaa kalluunka noo dabi doona isagaan ka wareysan doona waraabi hay iminka waaniga hagaajisanaya bahalka kutirka hadan badda ku tuuray waxaan ku xidhayaa dejis bahal la yiraahdo dhagaxa inkastoo garanay marka iminka insha Allah ilaahay mid weyn inuu nala boodo mid weyn bani ilaahay xagga nasiibkan ku wanaagsanahay sax waxaan waa inaad mid weyn ka soo qaadato insha Allah marka waxaad iga warantaa habeenkii la tilaabtay subaxdii ku kala duwan habeenkii kalluunku aad buu cunayaa subaxdiina soo dhawaadada markii waa birada tahay ku shabaagta galaa oo si wacan ugu dhaca shabaga sax laakiin habeenkii xaggan jilaabta waa habeenimo inkastoo caawa iyo kii dabayl yari jirto dabayshaas haday go'an tahay baa waaweyn baa laga soo saari lahaa caawa waqtigaaga habeenkii badan halkan baad ku qaadataa waqtigayga badan habeenkii halkan aan ku qaataa keligii sababtoo ah waan dabtaa oo waan samaystaa waan iibsadaa imsa saacadood baad ilaa joogtaa halkan waxaan joogaa ilaa 2 saacadood meelaha kama badiyo sax marka imika wanaga nimi caaw haddana bilaaweynaa nasiibkeena waxay inoo galaa insha Allah bal xagga nasiibkana uu ku wanaagsanahay sax bal wanaagii caaw inaad in badan kaga soo qabateen insha Allah wad inkastoo fiicnay dabaysho go'an aroortii dabaysho aad way go'antaa garanay xilli hore saaka waa go'anay tobanadii meelahaas soo baxday dabaysho waa go'anay iminka way jiidanaya waa mid iska normal ah waan gartay waa kan soo wada waka kaas xabada salmi ka soo qabto ta dhaqdhaqaaqaysa ma sha Allah ilaahay ba nooc alfa waa naaw wakii yara Soomaaliya iminka disheegis iminka shaad buusta tuuta ka tuuta xiran xabada askariyan soo qaban xabada askariyan iminka soo qaban siibkayga wacan yahay nodig halkan aan ka saaro jilkan ka saaro hawee jilka laga saaraya la jilka afku ugu jira jilka laga murooriyo oo isla bahalkan ma mid kale ku soo qabanaysaa isla sayuu ma ku soo qabanaya saasan u tuuraya waaba haystaa hawl weyn kaaga bixi mayso utirka un baraxanaysa waka xabadaas waka kii koowadan qaban kii weynaana way noo qabsoomaya insha Allah kalluuna waa ka yaryara عابو هذه جوار كلهم والله المجلس واحد إذا قادوا وكلهم بس شيء ونفقدها بدنا استعماله هاي الرياضة فيتامين بولية عن سنة سقطان كريم هذا هبين سميسة تدين تعاطفان حافظ لهم بكلام حافظ لهم بكلام سوق الله قسمنا يا نظام الله قسمنا كيف هذين كسبوا عمرو سنة ما حيمك هبينك بدنا مقبلها يعني kalluun ka waaweyn baa la helaa mid kala leeg baa la helaa markaan joogo xilli ilaahay wuxuu u beegaa mid waaweyn inta riyar baa kan soo laakiin markaan joogo shalay iyo waxa qabtay mid inta leeg alxamdulillah waan iibiyay $5 baa laga aniga laftigeena imika diyaar garowga ku jirnay dibadda way naga wadabaan aan waaweyn sax iyo baleegay ilaahay wax naga soo saaray oo sax waa suweynaa ilaahay naga siiyo mid ka waaweyn lama shaqatay laakiin khaasatan waxaan jilaa haddana caabi ahaan ahay kalluun gadaa waa la yiraahdaa mid kalena wax la yiraahdaa dab kalena wax la gaxash waa fara badan yahay mid dooraad baa la yiraahdaa mid cali kushad baa la yiraahdaa waa fara badan yahay marka bal mar dhow waan iibi insha Allah marka mar dhow inuu iibi doonaa waxay nooga soo baxay meesha hadda waxay la joogan nin dhalinyaro ah oo ka yimid magaalada Cerigaawo isaga laftigiisa wuxuu yimid dalxiis baan filayaa war Saalax soo dhow aad iyo aad waa dhaway saaxiib waxaan halkan u yimid horta waa bisha koobaad ee lagu dalxiisi karo mayd marka sidaa darteed markii koobaadna ma aha mar badan waan imi insha Allah ku dhawaay channelkaagana saa
هذه لفتها قاعة واحدة تمينات كلميست سومالكن aad ها dadka kalluumaysanayaan ku jira inkastaanba aqoonba laakiin sidee waa wax kasta waxa laga soo bilaabo xagga hoose marka sidaa darteed caawan anagoo kalluumaysanaya laftirkaygu way asxaabtii cirgaawad ka timi waxaad fariin u diraysaa aad waxaan leeyahay indhaha la soo doogsado cirgaabo kaliyaan in ku madoobaan dalal badan baynu soo maray insha Allah saano soo maray waxa la inaan dal marin dhaayo male kan insha Allah xalay idinkuna ku soo dhawaado damay meeshini asxaabtayda YouTube kama page-kaygana maxaa la eegana aad iyagana ku dhawaay inkastay markii koowaad ii tahay laakiin waxaan leeyahay odayga deemeesha inoo ya wixii lagu dhufan jiray kullaan caanahay laakiin say ku qaatatay السلام عليكم ساكا waxaan joognaa magaalada Rugay waxay la joogaa odayaasha magaalada marka odayaasha ma ku soo dhaweynaya Cali iyo Axmed iyo Saciid بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkanu waa Rugay waa magaalada weyn waa 1954 waxa weeye waqtigii wadada tabcan la sameeyay ayaa tuuladan la aasaasay waxa lagu aasaasay tuuladan markii wadadu socotay ayaa shaqaalihii wadada ka shaqeynayay ayaa waxay meheradihii daba joogay ragii kamid ahaa markaa deegaanka ku noolaa ee joogay waayeelkeed ahaa ayaa aasaasay dabadeedna gaalkii shaqeynayay ee wadada markaa ka shaqeynayay ayaa la yidhi tuulo ayaanu doonaynaa xaggay tuuladu ku habboon tahay haddii aad tuulada ay weydiiseen waxa la tegey meel halka ka sarreyso deegaanka markii hore waxa la odhan jiray dhulal cas dabadeedna dhulal cas markii la odhan jiray waxa la yidhi meel halka sare ah ayaa laga dhigayaa tuulada ayaa deegaanku isla gartay kabacdi waxa la yidhi halkaas waxay u dhowdahay biyaha ayay u dhowdahay biyaha darteed dadka kaneeco badan ayaa ka dhalanaysa dadka ayaana u wanaagsaneyn dabadeedna gaalkii wuxuu yidhi ninkii caddaanka wuxuu yidhi hoos noo soo kaxaya halkanaa laga dhigay tuuladu markaa Rugay ayay la baxday Rugayna waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa rug la dego haddii ay weydiisan YouTuberkiinu waa rug la dego Rugay waa meel rugowday oo la degaa sidaasay tuulada magaca kula baxday waa tuulada da'da weyn waa 1954 waxa kaloo jira waxa la yiraahdaa dariiqa Sheekh Saxaaq oo wadada loo maraa Sheekh Saxaaq magaceedana wadada waxa la yiraahdaa tabca ilaa isku xidha ilaa Ceergaabo ilaa halka ilaa Maydh waxaanu markaa deegaankaas nabadgelyo horta waanu haysanaa nabadgelyada aad iyo aad ilaahay noo siyaadiyo way fiican tahay deegaankuna dadka jooga aad ayaa community-ga degani isugu wanaagsan yahay baahiyaha ka hadlayno waxa kamid ah MCH malihin oo MCH waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha caalamka iyo dawladda inay wax nooga qabtaan wadada tabca
waa baaba'san tahay iyana waxaanu doonaynaa in wax nalooga qabto oo nagala taageero nalaga siiyo saldhig ma lihin saldhig bilays ayaanu doonaynaa oo waxay xukuntaa tuulooyin badanina waa hoos tagaan bari iyo galbeedna way ku furan tahay waddankana dee in loo foojigaado oo laga shaqeeyo nabadgelyada iyo adkaynta amniga ayaa wanaagsan sidaasna waxay ku habboon tahay dee shaarka dawladda inaanu helo shaarka dawladda oo saldhig hello ayaanu dawladda ka codsanaynaa waddankii khalkhalkii amnigii khalkhal ku jiro aawadeed sida kale waxyaabaha baahiyaha iyagu waa noocay ragna way ga dambeeya baahiyaha iyagu waa noocaas hay-adaha caalamka iyo dawliga iyo jaaliyadaha iyo mid walba waxaanu leenahay waddanka haddeer abaaraha ka jira oo waddanka waa aragtaan oo waa ujeedaan yutuberkiinu inamadiinan wada wariyaashiina ahi dadku waa ku liitaa camallo ma jiro camalkuna waa yar yahay dadka da'da waaweyn ee u da'da waaweyn tulada waa jiifaan oo maxaysatada ah waxaanu doonaynaa in laga caawiyo hay'adaha naloo soo daayo hay'adaha insha Allah marka waa ku soo dhawaanaya waxaan ku soo dhawaanayaa odayga tuulada odayaasha tuulada Axmed Cabdi Xarbi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu Axmed Cabdi Xarbi wixii tuulada taariikhdeeda waxa dhameeyay Cali Cabdi Xasan waxaan ka hadlayaa baahiyaadka waa meel dad badan waxaan u baahanahay MCH waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi inay noo gaadho saxaafadaas uu daawado waan jecelahay waxaan kaloo ka hadlaynaa iskuulka naga dumay in naloo dhiso oo ay sakratay wasaaradda waxaan ka hadlaynaa hay'adaha aan meesha soo gaadhin hay'adda keer maaha hay'adda keer iyadu waa ku mahadsan tahay xitaa caafimaad darro aad u badan baa ka jirta meesha oo ah ummadii oo soo gaadhay dawlaha aan caafimaad ahayn aad iyo aad waxaanu dawladda uga codsanaynaa inay wax noo qabato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكدنيد ودلك إيه ضدك باي نبتجيه ده ولو أنا بايجه الرئي هو ويكحوي كشيء صح أنا وحاول كبيرة يا أولك أمارنا وكشرتها حولنا وحويهين ضدك محمد داسو ويكشرتها وهذا نبضرود ويكوي بلودي runtii waxna way u dhintay oo xashiraan ma jiraan laakiin aad baa loo bukaa taasuna waa taa nabadgelyadu iyadeedu tuulada waa taam sidaasay tahay xagga nabadgelyada ama rugta bilayste ma lihin oo in doon aanu dawladda kala hadalnay madaxweyneyaashii soo maray dalka cidina wax noogama qaban sidii baan rug bilays u lanahay sidaa iyo nabadgeliyo binooga liitaan xooluhu geelaya adhiguba waa bukaa dadkuna xanuunka leeyahay xumadda ayaa hadeer haya waxaanu doonaynaa caafimaadka xanaanada xoolaha iyo caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka oo dhakhaatiirtu waa inayna soo gaadhaan oo xumadda dadka haysaa dad badan bay xumaddu haysaa aad ugu liita dee in xanuunadana laga soo gaadho dad iyo duunyobana waanu doonaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi ودور ويه ونسك قدرنا مجرد بريس عاد كهني لكن وعنا بريس عاد لكن ونحيسه وكره يجي مسلم كا ما أنتم هنكرهسنا وحي عساسا مش ده عساسا قنبا مكرهسنا يمكن قدرنا والله